kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idin soo gudbinaynaa xogta ku saabsan kooxda Daacish oo haatan nafli caari ah iyagoona dalbaday in markaasi qaybtoodna cafis loo fidiyo halka qaybta kale ee ajaanibtaana ay dalbadeen in loo baneeyo wadada oo ay ka baxaan dhammaan guud ahaan Puntland. sidoo kale waxaanu idin soo gudbin doonaa ciidanka Puntland oo gacanta ku dhigay dad ajaaniba oo markaasi looga shakisan yahay in ay markaasi ka tirsan yihiin kooxda Daacish. baaritaanada ilaa haatan ku socda ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa, balse intaan ugu galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horreysayna soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like aa saarto si dad badan ugu gaaro. ciidanka difaaca Puntland ayaa markaasi ku sii saqaya goobo hor leh oo kamid ah aaga Toga Jacayl, waxaana wararku markaasi ay sheegayaan in ciidamada ay baaritaan xoogan ay wadaan iyagoo markaasi la wareegay fariisimo cusub oo ay horay markaasi u deganayeen xubno ka tirsan kooxda Daacish. haddaba marka laga soo tago howlgalka ay ciidanka Puntland ku baacsanayaan kooxda Daacish ayaa waxaa jira xoga sheegaya in xubno sarsare oo ka tirsan Daacish ay dalbadeen in markaasi cafis loo fidiyo iyagoona markaasi la soo xiriiray saraakiisha howlgallada hogaaminaysa, waxayna u sheegeen in ay doonayaan cafis loo fidiyo oo markaasi ay isaga soo baxaan. kuwa cafis ka dalbanaya ayaa Soomaali ka tirsan kooxda Daacish, waxaana horeyba isu soo dhiibay xubin sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish oo lagu magacaabay Lahore, kaas oo ku eedeysnaa in uu ka qayb qaatay dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland, waxaana horey isagoo maqanaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay ku xukuntay dil toogasho. haddaba wararkaanu helayna waxay sheegayaan in xubnaha Soomaalida ee ka midka ah kooxda Daacish ee ku sugan buraha Calmiskaad inay dalbanayaan cafis loo fidiyo. sidoo kalena xubnaha ajaanibta ah ee ku sugan buraha Calmiskaad ayaa qudhooda waxa ay markaasi dalbanayaan in loo furo wado ay markaasi ka baxaan, waxayna sheegeen in ay baneynayaan goobaha ay ku sugan yihiin haddii loo sameeyo marin ay kaga baxaan gudaha Puntland. xubnaha markaasi codsanaya inay ka baxaan Puntland ayaa la rumaysan yahay in intooda badan ay yihiin xubno markaasi ka soo jeeda Itoobiya, maadaama kooxda ka dagaalamaysa Daacish buraha Calmiskaad ay kasoo kala jeedaan wadamo badan oo Carab iyo markaasi isugu jirta Afrikaanba. haddaba kooxda ayaa waxaa markaasi xubnaha kooxda Daacish ee markaasi ku dhumaalaysanaysa buraha Calmiskaad ayaa waxaa markaasi haatan ay cadaadis xoogan ay kala kulmayaan ciidanka difaaca Puntland oo weeraro markaasi dhowr jiha ah ku qaaday, waxaana jira khasaare xoogan oo soo gaaray kooxda markaasi Daacish maadaama dagaal toos ah iyo duqeyn ay ka qayb qaadanayaan diyaarado dagaalba ay saameyn ku yeelatay. haddaba Puntland sidee ku aqbali doontaa in markaasi kooxda Daacish la siiyo marin ay ka baxaan? xageese tagi doonaan? waa su'aalaha markaasi la isweydiinayo haddii ayba noqoto in markaasi loo baneeyo wado. Puntland waxay wadaa dagaal aad u xoogan oo ka dhana kooxda Daacish, waxaana markaasi ciidamada haatan ay ku sii siqayaan goobo hor leh, waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo haddii markaasi ciidamada ay la kulmaan goob markaasi ay ku sugan yihiin kooxda Daacish in laisku fara saaro, maadaama ciidanka 2 maalmood oo dagaalka uu hakad galay. ciidanka markaasi Puntland dhaawacyo fara badan iyo dhimasho saraakiilba ay soo gaadhay ayaa waxaa mar kale maanta dib u bilaabmay howlgalka markaasi lagu baacsanayo kooxda Daacish oo ku dhumaalaysanaysa buraha Calmiskaad, waxaana wararka aanu markaasi helayna ay sheegayaan in saaka deegaano hor leh sida deegaanka Damale ay markaasi gaareen ciidanka Puntland, halkaasna ay ka wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ay markaasi ku doonayaan in ay ku gaaraan fariisimo cusub oo horay ay u deganayeen kooxda Daacish. kooxdan ayaa markaasi la rumaysan yahay inay u badan yihiin ajaanib oo ka kala timid wadamo kala duwan, waxaana madaxweynaha Puntland oo goor sii horeysay warbaahinta la hadlay uu xusay in waxa markaasi ay ilaa haatan ay la dagaalamayaan ay yihiin ajaanib, waxaana sheegay in xubno ilaa 100 kor u dhaafaya dagaalka ay ku dileen, dhammaantoodna aysan suurad Soomaali lahayn oo ajaanib ay yihiin.
waxaana markaasi madaxweynaha Puntland uu sheegay in waxa ay la dagaalamayaan ay yihiin argagixiso heer caalami ah isla markaana loo baahan yahay in Puntland la garab istaago cid walba oo garab istaagtana ay markaasi soo dhaweynayaan. ciidanka difaaca Puntland ayaa meedad hor leh ka soo saaray buuraha Calmiskaad kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay ee markaasi ka dhacay buuraha Calmiskaad gaar ahaan aaga Toga Jacayl. waxaana wararku ay markaasi sheegayaan in Puntland ay sii laba jibaartay howlgalka waxaana haatan ciidanka oo garab ka helaya shacabka Puntland ay markaasi gaareen goobo hor leh oo ay doonayaan in ay uga sii ruqaansadaan goobaha lagu tuhmayo in haatan ay ku sugan yihiin xubnaha sarsare ee ka tirsan kooxda Daesh. waxaana la filayaa in maalmaha ina soo aadan ay guulo waaweyn oo isdaba markaasi jooga ay gaaraan ciidanka Puntland maadaama ay ku sii siqayaan goobo hor leh awoodoodana aysan hor istaagi karin kooxda Daesh marka laga soo tago jidgooyooyin qaraxyo ay mararka qaar adeegsanayaan iyo in buuraha ay markaasi ka soo toogtaan ciidamada gaar ahaan saraakiisha maadaama ay haystaan qoryo markaasi shamshuutara oo meel fog wax ka toogan kara. dhanka kale Puntland ayaa markaasi waxa ay gacanta ku dhigtay xubno markaasi sarsare oo ay raahdee waxay gacanta ku dhigtay shakhsiyaad markaasi ajaanib ah oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Daesh. ciidamada amniga ee Puntland ayaa markaasi gacanta ku dhigay ilaa 3 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo markaasi mid Soomaaliya uu ku jiro waxaana lagu tuhmayaa inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh. howlgalka la dagaalanka markaasi argagixisada ee Puntland ay wado ayaa markaasi waxa lagu shaaciyay in magaalada Boosaaso lagu qabtay 3 qof oo ajaanib ah iyo qof Soomaaliya oo dhamaantood lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin kooxda markaasi Daesh. taliska la dagaalanka argagixisada ee Puntland oo qoraal kooban soo saaray ayaa sheegay in baaritaan lagu wada shakhsiyaadka ciidamadu ay qabteen ayna ka qabteen magaalada Boosaaso oo 3 kamid ay yihiin ajaanib halka kan afraadna uu yahay Soomaali sida lagu xusay qoraalka ciidanka amniga Puntland ay soo saareen. magaalada Boosaaso amniga ayaa qabtay 4 qof oo 3 kamid ah ajaanib tahay kuwaas oo baaritaan lagu hayo waxaana lala xiriiriyay kooxda Daesh ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay howlgalka ciribtirka argagixisada ee markaasi dawladda Puntland. ciidamada oo kaashanaya hay'adaha sirdoonka ee Puntland hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee Puntland ee loo soo gaabiyo BISA ayaa sidoo kale wali markaasi wada howlgallo amniga magaalooyinka waaweyn ee Puntland lagu xaqiijinayo maadaama laga cabsi qabo in firxadka xubnaha kooxda Daesh ay dib ugu soo laabtaan magaalooyinka waaweyn. waxaana shacabka lagu amray in guryaha aysan ka kireyn karin cid aysan aqoon isla markaana ay soo sheegaan cid walba ay uga shakiyaan in ay xiriir la leeyihiin ama ka tirsan yihiin kooxda Daesh.